barasaabka gobolka Sanaag Injineer Axmed Cismaan Xasan oo weheliyaan taliyaha qaybta booliska gobolka Sanaag gaashaanle dhexe Salebaan Ducaale Ubaxle isuduwayaasha wasaaradda kala duwan ee gobolkaasi oo maalmahanba safar ku gaala bixinayay degmooyinka gobolka Sanaag ayaa galinkii dambe maanta kulan ballaaran oo lagu xoojinayo arrimaha nabadgelyada ku qabtay magaalada Fadhigaab oo ka tirsan degmada Garadag ee galbeedka Sanaag. kulankan ayaa daaranaa dardargelinta iyo xoojinta nabadgelyada waxaana dhankooda soo buuxdhaafiyay goobta kulanka lagu qabtay maamulka degmada Garadag waayeelka waxgaradka iyo shacab weynaha reer Fadhigaab. ugu horeyn waxaa dalka qaatay maayirka degmada Garadag Faarax Aadan Ciise iyo maayir ku-xigeenka degmadaasi Sahal Maxamed Ismaaciil iyo waliba xogayaha fulinta dowladda hoose degmada Garadag Cabdiraxmaan Jaamac Ducaale xuqaasha iyo waxgaradka reer Fadhigaab oo dhammaantood warbixin guud ka siiyay barasaabka iyo wafdigiisa xaaladda deegaanka Fadhigaab. aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa runtii shirkan halkan maanta ka dhici doona shirkan oo laga hadli doono arrimaha adkeynta nabadgelyada deegaankan aynu joogno. waxaan leenahay marka hore mudane gudoomiye iyo mudanayaalba deegaanku marka hore waa nabadgelyo runtii waad arkaysaan dadku si ay u joogaan insha Allah taala waxa wax dhibaato ay hadda kama jiraan dalkii oo nabada leedi ka sugayay waxaan ku soo dhawaada iskaliya laaba ku soo dhawaada inta kadib hadalkii hore maayarka dhameeyay nabad weeye dhulku deegaanka nabadda baahiyaadka kala gedisan maadaama uu soo kaxaystay wasaaradihiisii isuduwayaashoodii waa isagoo ay maanta gudoomiyuhuna u yahay gudoomiyihii koowaad ee wasaaradihiisii isagoo garbihiisii ku duulaya inuu ugu yimaado deegaanadeennii ka dhaxaysa waa reer Fadhigaab iyo jiidar isku noolka iyo deegaankeenna ilaahayna waxaanu ka baryaynaa in kastoo waayeelow ka shaqay sida inankaagu waxbarashada iskuulkiina waxidhaya sidaan qabo gurigiinni martida waxa weeyaan markaa aad iyo aad baan idinku soo dhaweynaynaa taliya-qabadkan doonaan wada shaqaynayno intuu isagu diyaan aagan wuxuu ka dhaceen baan wada shaqaynaynay haddii alba kuuriyay si wanaagsan baan u wada shaqaynaynay magaalada Fadhigaabna waa nabadgelyo dadkeeda gacmaha is haystaan taliyaha qaybta booliska ee gobolka Sanaag Salebaan Ducaale warsame Ubaxle ayaa kula dardaarmay shacabka reer Fadhigaab inay ilaashadaan nabadgelyada ciidamada deegaankaasi ku sugan la shaqeeyaan. reer Fadhigaab waxaan leeyahay hal la sii adkeeyo nabadgelyada waxaan leeyahay cuqaashi iyo gudoomiyaha tuulada Fadhigaab halka hadlay ee baahiyaadka reer Fadhigaab hadday waxbarasho tahay iyo hadday base bilays tahay iyo hadday baahiyo kala tahayba inta Fadhigaab ka dhiman reer Fadhigaab oo idinka ka dhimanay balaayo kale meel ugama iman idinka u sababa in ilmihiinu saamaanta wax bilaa waxbarasho noqdo in buluusku waxaan dhacday reer Fadhigaab waa ogeydeen dhacdadii ugu horeysay Fadhigaab ka dhacday halkan baan aniga gudoomiyuhu nimid bartaa ee garoonka aynu taaganahay baanu joognay nabadgelyadaanu xakamaynay ilaahay ka sokow aniga gudoomiyihii hore iyadoo ciidanka buluusku joogo ayaa dagaalkii dambe dhacay askarigii buluuska ugu qaalisanaa isagoo garoonka ayna taagano dagaalku soconaya dagaalka gurmadkan ceerigaaba ka soo gurmaday iyadoo xabaddu soconayso gudoomiyaha gobolka Sanaag safarkiisana wuxuu salka ku hayaa xog ogaal noqoshada xaaladda dadka iyo dunyada ee degmooyinka gobolka Sanaag waxa uu safarkan waxa uu saaka gabagabadii barasaabka gobolka Sanaag Injineer Axmed Cismaan Xasan oo hadalka qaatay ayaa bulshada reer Fadhigaab u sharaxay muhiimadda ay leedahay nabadgelyadu oo fikirkii anigu markii hore aan haystay meelaan cidiba isku imanay baad markii hore tagaysaa baan islaa laakiin dadkii hadlaaba oo nabadda diyaar u yahay oo horumar igala hadlaya ayaad maxaan ku dhaday ku hadlayseen taana aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin haddaan dib ugu noqdo ujeedkayga socodka safarkaygu daaranaa waxay laba qodob mid waxay ahayd isbarasho inaynu horta bal isbaranno tan labaadna waxay ahayd nabadgelyada ayay ahayd ta saddexaadna in xaaladiina aad ku sugan tihiin horumarineed loo kuurgalo ayay ka mid ahayd waliba safarkaygani wuxuu ugu kow ka ahaa Fadhigaab buu lambar 1 wuxuu ugu ahaa waxay ahayd maalintii ciidanku baxay
habeenkii markuu ciidanku tegey baa waxaa laygu yidhi ma subaxnimadii dambe qolo qoriye sideetaan magaalada agteeda fadhiday sidaa awgeed warkaasi ama run ha noqdo ama been ha noqdo markaasaa waxaan idhi war waa in dadkii hore loo gaadhaa dadkii hore ha loo gaadho wax loo sheego maxamed gumbure telefishinka caalamiga bulsho Garadag.